halkani waa madrasatul Cusmaan bin Affan oo kamid ah madaarista iyagu lagu barto Quraanka Kariimka iyo qoolka Eebe ee ku yaala deegaanka Dadaab kana tirsan ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Madrasadan ayaa xilligan waxa ka jirto baahi dhanka deerta iyo sidoo kale ardaydana iyagu baahi ay u qabaan biyaha inkastoo ay haysanin goobo ay fariistaan una baahan yihiin in kursiyo lagu taageero. haddaba maamulaha sare ee madrasada Cusmaan bin Affan oo wareysi gaarsiiyay warbaahinta Live News Somali TV ayaa wuxuu baaq uga codsaday xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dadaab waa Faarax Macalin Jabaara inkastoo uu sheegay hore inuu uga balan qaaday in madrasada uu wax badan ka qaban doono hadduu xilka uu ku guuleysto. hadda ayaa wuxuu baaqan u diray xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dadaab iyo sidoo kale MCA-ga laga soo doortay Dadaab Maxamed Abow kaasoo ay guud ahaan iyo muxsiniinta ka codsadeen in taageero xooggan ay u muujiyaan. haddaba wareysigan oo ay siiyeen maamulaha sare iyo macallimiinta warbaahinta live ayaa waxay ka codsadeen bulshada taageero in loo muujiyo kalena soo xiriiri karaan lambarka shaashada ka muuqdo waa lambarka maamulka sare ee madrasada. dhammaan muslimiinta meel joogaan waan salaamaya aweysna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku barakeeyo meeshaan aan ugu soo booqatay madrasada ku taalo magaceeda waxaa la dhahaa madrasada Cusmaan bin Affan waxay ku taala magaalada Dadaab ku taala gaar ahaan California ku taala. marka madrasada haddaan sheego baahideeda waxaa ka mid ah ilmaha maaragtay dhulka iska fariistaan musquul ma laha deer oo maaragtay ma laha. marka dadka waxaan ka codsanaynaa muslimiinta dal iyo dibadda jooga oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyay waxaan ku jirnaa bishii barakeysaneed ee maanta Ramadaan maanta 6 noo ah maanta waa bisha waa 6 Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkeeda hana siiyo inta i daawanaysa inta i garan muuqeydii inta i garanaynin waxaan maarta ka codsanayaa madrasada California ku taalo oo aad iyo aad u layacan oo maarta madaxda aan soo dooranay iyo MCA-ga kulli dhammaan MB ilaa MCA-ga kulli aan baahan madrasada ayada inay caawiyaan oo ardayda ay ka dhulka iska fariisanayaan yaala badan bay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin musquul u baahan yihiin waxay u baahan yihiin xalli jira inay maartay keetiye loo galo maartay dhulka ay ka kacaan oo keetiye ku fariistaan. way madrasadan dabcan arday badan ayaa xifdiyay Quraanka oo isla markaana ka qalan jibiyay soo laysma dhihi karo waa madrasadii ugu horeysay oo arday badan oo isla markaana ka qalan jibay haddana aanun haysanin daryeel dhanka dhisitaanka oo kale maadaama madax badan deegaanka laga soo doortay howlwadeenaba ay jiraan iyo sidoo kale dad oo mutadabaciin oo iyagu markaasna la doonayay inay kaalin wanaagsan ay ka ciyaaraan. marka dadkaas oo kale soo loogama baahna in madrasada wax badan ay ka qabtaan. waa loo baahan yahay. marka ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dadkaas? waxaan ugu baaqayaa madrasadan waa 5 galaas kaloo ma aasnay muslimiinta arrinta ay wax ka qabtaan oo hadana maartay aad iyo aad u fiican maartay ku fiiriyaan baan u baahan maartay MCA-ga iyo maartay MB-ga maartay u weyn oo Dadaab laga soo doortay u daraya MB-ga iyo MCA-ga magaalada hadda ka hor u sheegay way og yihiin waxay in insha Allah taala hadaan ku guuleysano wax weyn ma ka qabanayna aad iyo aad u mahadsanyihiin waya haddana maadaama ay ku guuleystaan iyaga dhankoodana wax qabadka ayaad ka filaysaan aad baad mahadsan tahay fariintiinu bilaa magacaaga. bismillaahi raxmaani raxiim ismi Cabdullah Maxamed Faarax oo ku nool magaalada Dadaab kana mid ah macallimiinta madrasadan akhriyo. marka madrasada magaceeda waxaa la madrasada Cusmaan bin Affan oo gaar ahaan ku dhisan magaalada California. marka waxaan u baahnaan lahayn galaaso iyo keetiyo iyo xalli jira biyo sidaa daraadeed waxaan ka codsanayaa dadka la soo doortay MB-ga inay madrasadan wax u tari karaan cid wax u tari karto. assalaamu calaykum. waxaa waayo galaas la'aan biyo la'aan iyo keeti la'aan sidaa daraadeed magaalada Dadaab dad loo soo doortaa jira marka inay wax u tari karaan madrasadan ka codsanayaa. assalaamu calaykum. daawade caawi allah ku caawiye wa Maxamuud Aweys Live News Somali Dadaab.